السلام عليكم أصحابتي قالي أهمل والبودني ذيك جوكتان فرحدي عافمات كوارا waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub channelka hadii aad ku cusub tahay subscribe iyo like waa muhiim maanta waxaa inoo wada sidaad aragtaan cake aad u macaan badan aad u qurux badan haddana qaab casri ah loo sameeyay inta waxaan ku haystaa 2 xabo oo moos ah waa jarjaray mooska oo ujeedan moos oo waxa waaye macaan sidoo kale waxaan ku darayaa 2 xabo ukun asxaabta macaanka jecel waxaan leeyahay sokor ku darsanaysiin markii mooska iyo ukunta isku dartiin intaana isku shiidayaa markii aan isku shiido si fiican markay isku dhex galaan aad u jilacdo mooska uu dhamaado waad u jeedaan waxaan ku shubayaa waxyaabihii kale aan ugu talagalay waa kana koob caano ah ku shubay waxaan ku darayaa hal qaado oo yar oo leebata ah asxaabteeda intaana isku walaaqayaa waxaan ku darayaa koobka weyn oo shaax lagu cabo waaye bakeerigan qof walba gurigiisa wuu yaalaa bakeeriga dhalada leh waaye isku mid waaye bur waaye bakeerigan burka ku shubayaa waad u jeedaan intaas la isku walaaqa wax kale lagu daraayo waa hawl fudud inaba caadi ma ahan waad arki doontiin asxaabteeda ilaa muuqaalka dhamaadkiisa daawada sidoo kale muuqaalka laagta ka iloobina aad baad u mahadsantiin asxaabteeda hadda cajiinka waa qasnay markuu sidaan smooth u noqdo oo jileec u noqdo oo waxba aan lahayn oo couscous waxaan saarayaa dabool bacdaas ku daboolayaa waxa loo baahan yahay 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo inuu meel yaalnaado oo noqdo mid qamiiray waa kana hadda 40 daqiiqo kadib uu qamiiray waad u jeedaan indho yeeshay hadda waa isdhex gelinaynaa dabkaan shidaynaa waxaan saaraynaa birti aan ugu talagalnay inaan ku dubno soo dhawaada marka waa wax aad u fudud haddana macaan badan waa kana hadda birti aan dabka saaranay saliid yar aad dusha ka marinaysaa dhac ku siisanaysaa oo ku masaxaysaa hadda waa kana si fiican oo qafiif aan dhahay si qafiif ma loo dubaayo waa kana waxa loo dubayaa si culays ma fahantiin saliid aad dusha ka marinayaa ما شاء الله تبارك الله هذا وجد جذود قرح بدنا وينو نقضي hoosna waa arki doontiin asna waa guduud ma sha Allah waa kana laba xabo idin ka tusaya asxaabteeda waa sida pancake oo kale u samaysan yahay haddana dusha waxa laga marinayaa wixii aad ku soo aragteen muuqaalka bilowgiisa inaba caadi ma aan doolsho kale to waa ma fahanteen أنا كسو وضعي أصحابتي وسو دمي هذا waxaa inta ku haystaa looskan walnut loo yaqaana magac kale muu aqaani looskaas hadii aadan haysanin waxaa isticmaalaysaa looska asagoo jajaban la gado sidoo kale chocolate qaraar ahna waatana waan wataa sida hore idinku sheegay asxaabta macaanka jecel waxa sameynaysiin meelaha aan ku isticmaalaa qaraarka waxa ku isticmaali kartiin chocolate macaan ah hadda inta ku isticmaalaysiin hadaan sokorku ma soo darin burku arkayseen sokor ku darsanaysiin hadii aad rabtiin ama ilmaha u sameynaysiin ma fahantiin hadda looskan waa weynka wuu qafiifsan yahay asiga sidoo u muuqdo uma adago marka waan jijibinayaa mooygaasi ka shaasa ku habeenaya marka tan bedelkeedana waxa isticmaalaysiin asagoo diyaarsan lagu gadaa supermarketyada saasa ku soo dhameynaya asagoo dhan asxaabteeda chocolate waa soo dhalaaliyay hadda dushan ka marnaa xabad xabada u soo qaatay burkii hadaata aan dubay hadda waa kana saxankaan soo saaray dusha waxaan ka marnaa chocolate aan soo dhalaaliyay dusha hadana waxa ugu sii shubayaa looski aan jijibiyay ama aan mooyiga ku soo tumay saasa isku dul saaraya ilaa laga gaaray kan ugu dambeeyo dushiisana saasa wax u marinayaa ma fahanteen oo u jeedaan kulay hadii aad daawatay muuqaalka like tahnaga iloobin fadlan dhiirigelinay noota adigna waxba kaama dhibayso moosku wuxuu leeyahay caraf aad u qurux badan oo gooni ah
marka saas darteed haddii xataa macaanka aad jeceshahay moos ha ka tegi mooska aad u macaaneynaya ma fahantiin sokor kaligiis ha ku qasin burka waxa quruxdan ka dhigayo mooska waaye asxaabteeda saanaan ku soo wadaaya ilaa ay dhamaadka looskana saasaa dusha ugu sii shubaaya hakasaaya hadda lagama sheekay karo waa kaasa sidaan oo ku soo baxay ugu dambeyn keeg miyaa mise waa waxyaabo kaleeto isweydiis baa ka dhacay ma fahantiin waxaan idin rajaynayaa caafimaad iyo bashbash inaad ku waartaan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh